بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن وناكسن إذن أهانتين بميل والبون داوانيسان أما نغلا سعوتان waxaad mar kale ku soo dhawaataan barnaamijkayaga bandhiga xubnihiisa kala gedisan ee maxaa cusub ee ra'yiga dadweynaha maxaa cusub ayaan idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay caalamka halka xubinta ra'yiga dadweynahana aad inoogu soo gudbisaan afkaarihiina kala gedisan idinkoo isticmaalaya faraha aynu bulshada ku leenahay sida Facebook iyo Twitter-ka sidoo kalena si toos ah u soo waca taleefanada uu leeyahay laga bilaabo habeenka Isniinta ilaa iyo habeenka Jimcaha ayaa si toos ah u daawataan idagoo idinku soo gudbino waxyaabo idin xiiso geliya haddaba aan ku hormarna xubintayada maxaa cusub noolo kasta oo dunida guudkeeda saaran gaar ahaan aadanaha ayaa waxaa mar walba uu yahay kuwa ay la soo darsaan xanuuno kala gedisan kuwaasoo siyaabo kala duwan ay ula tacaalaan waayihii tagay ayaa dadka reer guuraaga ee Soomaalidu inta badan waxa ay isku dabiibi jireen ama isku daweyn jireen dhirta qaybaheeda kala gedisan ay u arkaan inay tahay mid ay dawo ugu jirto dhirtaasina waxa kamid ah sida dacarta iyo waxyaabo la mid ah kuwaasoo ay aad isugu dabiibi jireen balse waayihii dhexe ayaa waxa daaqada ka baxay dhirtii iyo wixii isku daweyn jiray oo waxa loo weecday ama la aaday waxyaabaha kiimikada ee ay warshadaha soo saaraan isla markaana loo arko inay dawo u tahay aadanaha guud dhaqaatiirta kala gedisan ee dunida ku nool ayaa iyagu siyaabo kala duwan u dabiiba bukaanada ugu yimaada xarumahooda caafimaad kuwaasoo kala gedisan sida waxyaabaha loo yaqaan harbalka ama dawada dabiiciga iyo midda kiimikada ee ay sameeyeen warshadaha balse muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxa soo ifbaxaya in dib loogu noqday dawooyinkii dadka lagu daweyn jiray dhirta iyo qaybaheeda kala gedisan iyadoo waliba la casriyeeyay isla markaana loogu magac daray herbal waayadii dambe ayaa bulshada Soomaaliyeed waxay ahaayeen kuwa u hanqaltaagaya ama u dhagtaagaya dawooyinkaasi guud ahaan barnaamijkayaga caawa bandhiga xubnihiisa kala gedisan ayaa waxa si toos ah ugu faaqidi doona dawooyinkaasi iyo waxyaabaha aadanahu ka taraan iyo waliba saameynta ay ku yeelan karaan haddii ay jiraan dhibaatooyin ay kala kulmi karaan waxaana barnaamijkayaga caawa guud ahaan aan ku gorfin doonaa qaybihiisa kala gedisan qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay Soomaalidu degto ayaa waxa laga soo diyaariyay documentary ama waxa loo yaqaano barnaamij iyadoo lagu wareysanayo dawooyinka dabiiciga ee harbalka iyo waxyaabaha ay kala kulmeen iyo waliba in ay ku dawoobeen bal aynu yar daawano muuqaalkan kadibna dib ayaan isugu soo noqon doonaa hadduu Ilaahay idmo الهدى هربل ميديسين waa xarun caafimaad oo dabiici ah waxayna ka howlgashaa xarumana ku leedahay wadamo ay ka mid yihiin Soomaaliya iyo Kenya cilmi baaris ay xaruntani samaysay ayay ugu soo bandhigtay 2017 sidoo looga faa'iideystay xarumaha ku kala yaala magaalooyinka Nairobi, Muqdisho, Hargeysa, Burco, Boorama iyo Wajaale waxaa jira dad iyagu ku xiran xaruntan oo daawooyin ka qaata qabana xanuuno ay ka mid yihiin sida dhiigkarka gaaska sokorta babaasiirta umusumiyaanka samboorka iyo waliba kansarka tani magaciisa waxa la seen Cabdi Jaamac dilay xanuun karimka 8 tan u hayay dhaqaatiir kala maqan laakiin dhaqaatiirta bulcun ba ku wareegay dhaqaatiirta bulcun waxay ugu yiraahdeen markaan imanka mudala inka 3 bilood ka bacdi waxay ugu yiraahdeen makaankaagu wuu xirmay caadadu way ka jeesatay iska tawagal sheekh halkaan u tagay rabadan hor dabayaaqada markay rabadan horteeda ayama dhamaan doonto sheekhaas muddo bila ayuu daweysii dawadii markaan dhamaystay ay dhowr iyo 10 habeen iga sii maqnayd ilaahay uga keenay intaana waxay ka maqnayd 12 bilood bay ka maqnayd caadadaas iyo waliba 18 habeen 12 bilood iyo 18 habeen bay ka maqnayd alxamdulilaahi rabbil caalamiin way iga socotaa hada markaan la soo xiriirayna dawada ilaahay dawayga siiyay erjadii soo noqotay oo yidiilan qaba alxamdulilaahi rabbil caalamiin magacayga waxa weeye Khasiil Xaaji Cabdullaahi Jirde muddo imaka xoogaa ah ayaa waxaan qabay xanuunkaas oo inta badan iga hayay luqunta iyo dhammaan jointiska ama meelaha labatooyinka ah oo diin maxana igu adkay fororsiga oo fursan kareyn waxaan ku tukanayay kursi
dabeeto waan tegay dhakhtarro badan runtii laakiin waxa intifaaca fara badan kalama kulmin talooyinka liiga siiyey cusbitaalada intooda badan waxay ahaayeen dibadooda la baxda mooyaane way adagtay halkan dawooyinkeedu alxamdulilah waxaan aakhirka adu de way adagtay runtii maaha wadan gudaheena marka dibadda tagayso lacag fara badan bay koskareynaysaa waxaana weeye inta badan de khataro badan oo lafteeduna oo ku jira badan badan oo igaysay dabeeto adu waa iskala wareegay aakhirka waxaan u imi muxuu ahaa dhakhtarkan alhuda ayaan u imi waa xanuunkii waan sheegay waan duubnaa luqunta oo dhan way duubneedoo kabitaan bay ahayd oo hareeraha maan eegi karayn markaa dhabarkayguna wax sidii wax takhalan buu ahaa jointiskan laga laabtay ee masalan ruugaga oo kale iyo xubnaha gacmaha iyo kuwaasina way adkaayeen si usoo laalaamayaan runtii ma garayn meesha waxa koskareynaya dabeeta sheekha u imi wuxuu siiyey dawooyin buu siiyey isku soo eeg dawooyinka waa isku soo eegay 2 bilood waxa weeye intii aan qaadanayay lafteeda gudaheedii ayaa waxaan dareemay isbedel inuu kusoo socdo oo macnaha jileecii markii hore adkaaday inuu soo jilacayo waxaan halkii aan kursiga ka tukanayay markii adooda dhameeyay waan forsiga u dhamoo dhamaaday markii hore laakiin waxay noqday 100 tallaabo oo socda oo constant oo socda ma socokreyn ama xiiq baa ku jiray ama dareen baa ku jiro labada lugood baa sare aan u qaadi karin ilaahay baan ugu mahadnaqayaa xanuunka la igu sheegay macaanka la igu sheegay marka xanuunkaas markii la igu xaqiijiyay insha Allah diidna markaa farmasiida igu dhaadeen kaniin baad qaadanaysaa oo macnaha noloshaada ma diideys ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay wuxuu ii qadaray inaan xarunta ilaahay soo waafajiyo marka xarunta markii ilaahay soo waafajiyay alxamdulillah doctorkan oo imiday xarunta macnaha u qaabilsan diidna insha Allah doctorkii ayaanu imiday insha Allah waxa ku dhima doctor xanuunkaas qabaa insha Allah ilaahay wuxuu waafajiyay dawo fiican bii qoray marka hore taasoo waxaan ilaa iyo 4 taabalaas baa ayay u sheegeen inaan qabo macnaha ay soo xaqiijiyeen inaan macaankan qabo yaa la soo xaqiijiyay dib markii doctorkii markii ma qabtaa haaba ku dhwan qabaa markii dambe dawadii bii qoray soo qaaday wada dawadaas waan soo qaatay ilaa iyo intii ilaahay qadaray waan qaatay alxamdulillah بسم الله هرت أولا بسم الله بان يندو ذيك بالعبي يانو إلهي إنه إلهي سبحانه وتعالى كحياة مثل إلهي نانو وحكي حياة مثل دودي الله سبحانه وتعالى مركان دميي رباطدي يعيستي معاك كورك عيسي إلهي ويقتل قاضي كدي ودختر كي يعني يمدي مر لبعض حنقول الدكتور في عنها الدكتور بحي ودي مس بعده معناها مساهو بيسوي يودي وحنقول وان صاحب بني أبا خوري حاجة بيقول الصو حقيقي مركا لو حقيقي كدينا يقصون قبول الحمد لله وصو حقيقي ورقات داس بان كسو حقيقي وهذا إن شاء الله دكتور كمان دينا مرة أقول له تبر الله أقول له طي waxay ii sheegeen alxamdulillah inay tahay nil ama ina waxba lahayba nil macna waxba ma lahaba waxba ma jiraanba amba ay tahay 8 kaasi waa intii qofka normalka ah caafimaad qabay weeyaan bay bilaadeen alxamdulillah waan ilaahay ayaan awal u shukriye diina insha Allah xaruntan hayaan medicine ayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay noo keenay aniyaan ugu mahadnaqay macna xarun aan u arkayna tahay فرش إلى ذاتك أصلا دودن درتها أي علاجك ويو ربي جو عافية يعني قام ما صير له دبدو مفريسين كرين أفر بلاد لا شن بلاد على وشد مي فريسين مركها وحوي دودي مركان استعمالي إلهي جو عافية درت لا يقرادن مدحو يكريو جديدي هردان سيحدي إلهي جو عافية سجام هذله إلهي شيخنا إسي شرفت لنا إلهي عافية ما تصيو ما حد بني له كنا قينا إلها نوك يعني حرم ذلك يجا. حاوي وحان أؤمن يعني هل كان إمد أيضا أو معان لإيقو شيغي معان كولي بكعة وحان قاتل داو أو كورة هدان داود قاتل أو لما يستي انت عن داود عناي أو كل حجر فهمت وحان داري معافي ماد وين أو يعني حنونك أن دريماي أو معانك أها مركي أن داود كالبر مريو maalmaha kamid ah waxaan iska qaaday test ayaan iska qaaday sugarka ah runtii anoo waxa weeye xaqiiqda marka ay sheego waxa la yiri sonkortaada waxay maraysaa 118 yani ma qabtid sonkor yaa sonkor kugu sheegay
waxaan iri sonkor waa qabay laakiin waxaan qaataa daawo cilaaj ah waxaa laga yaabaa daawada cilaajka ahayd inay wax i tartay oo yacni ay iga caawisay baa laga yaabaa marka wuxuu yidhi yacni ninka dhakhtarka oo baaraya waxaa ii sheeg dhici karta inaadan sonkor qabin markaaga hore oo yacni waxaan ku yidhi waxaan ku tusi karaa baan yidhi waraaqahayga yacni dhiigaga layga qaaday oo layga shubay weliba laygaga baaray runtii waan soo tilmaamay wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan halkaas arko 18 sano aniga bay haysay adiga laakiin hadda sonkortaada waa stable laguma moodo wax sonkor qaba waan laabtay maalintii dambe daawada intii iga dhimanayd haddana 3 meelood yacni 2 meelood markaan cunay oo meel ii harsan tahay baa maalin maalmaha ka mid waxaan isiri test iska qaad haddana waa iska qaaday 18kii bay sonkorteeda dhimanaysa 118 haddana sidii si lamid ah buu yidhi farmashihii kalena wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa inaysan sokor ku haynin oo yacni aada la khalday dhiigaaga markaa dib ma isku baartay waxaan ku yidhi sonkor waa laygu sheegay waana i kici jirtay waanan yacni qabay baan ku idhi laakiin hadda waa ka fiicnahay hadda waxaa iiga haray wax yar oo yacni qaliil ah daawadii runteena xataa tijaabo baan sameeyey macaan badan baan cunay si markaa macaanka awal cuno waxaan dareemi jiray xanuun jirka i gubta anigoo yacni gubanaya wax badan baan dareemi jiray waxaan cunay xalwad buskud haddana waa cunaa yacni waxba maan dareemin wax yar haraad baan dareemay kabacdina daqiiqado kabacdi yacni waan dhididay wax yar wuu iga ba'ay xanuunkii marka runta xaqiiqda markaan ka hadlo waxaan difference weyn yacni oo hadday noqoto caafimaadka hadday noqoto jirka hadday noqoto cuntadaan cunaya hadda wax daawaa ma qaato haba yaraatee ma qaato waxa weeye xanuunkaygu waa kansal intaasoo dhakhtar baan tegey waxba way iga qaban waayeen imiga aad baan u fiicanahay intaa dawadaa sheekha aad baan ugu fiicanahay dhiig xoog badan baa iiga socday intaa imiga dawadaahan qaatay dhiiggii wuu yaraaday isbedel weyn oo caafimaadaan dareemay magaalada Jogbo jaalaan ku noolaa waxa weeye aad baan imiga u fiicanahay kolkii dawada sheekh la ii doonay anigu sariir baan sawaalay kala garasho ma lahayn waxba ma ogeyn wax la ii keenay laakiin dawadii markii la siiyay ayaan isbedel weyn sameeyay wax ii soo kordheen imikana alxamdulillah rabbil caalamiin dawadii markaan qaatay waan aniga xafiiska imid ee cagahaygii ku socda kansalkiina waan ka dawoobay alxamdulillah rabbil caalamiin alxamdulillah rabbil caalamiin halkan waxaan ka hadlayaa Boqor Cumar xanuunka la yiraahdo dhiigkarka ayaan ka cabanayay in doora iyo qanjirka la yiraahdo prostate-ka dhakhaatiir badan baan la maray dhakhaatiirta badan waxba dawo uun bay siinayeen chemical lahood ay iga jabinaysay waxoogaa muxuu ahaayey dawo la nool baan ahaa marka waxaan u imid ninkan sheekha markii aanu imid dawo ii qoray dhiigkarkii 9 casho markii aan isticmaalayay dawadii ayuu halkiisii ku noqday caadiga ahayd muxuu ahayd dabadeedna dawadii waan joojiyay aad iyo aad baan ugu ladnaaday oo ugu fiicnahay hadda ma qaato dawo ilaa muddo dhowr bilooda ma qaadan dawo dhiigkar muxuu ahaayey waxaanuna iskuma arag subax walbana waan isjeegareeyaa waa normalkiisiiba u noqday muxuu ahaayey waxa aan qaataa imika dawadii prostate-ka iyadana aad iyo aad baa xanuunka iga yaryahay hal mar baan qaatay koorsadii labaadna waan qaadanaya haddii ilaahay idanka ka dhigo aad iyo aad baan ugu fiicnahay oo aan uga reystay xanuunkii dawooyinka naarbalka aad iyo aad bay u fiican yihiin ilaahay ninkaa gacantiisa wuxuu iga siiyey dawo alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baan ugu mahadnaqayaa waan xanuunsaday kansal baa igu dhacay ilaa rabadaan xanuunkaas i taabtay 6 bilood ama 7 bilood ma kala hubo waa inta u dhaxaysa waxaana ma cunin oo biyo iyo baad igaba digo dhulta ma marin kabacdina suulile ma gelin ma daacin ma neefsan geestana waan ka xidhnaa waxaan ka iga siin jiray wax xididada intaas markay dhacday
yaa bisha soconaysatii ka horreysay 25 baan dhakhtarka Farxaan iswanaga sheekha ah xanuunkayga baan u sheegay wuu i daweeyey diinta cuskaday sunnihii nebigana wax ku daweey jiray waa igu daweeyey waxaan iin sheegayaa inaan dawoobay oo raadkii caafimaad ku dhaqaaqay oo aan caani cabiyo oo suuligi geliyo oo seexanayo oo aan intaa waan idiin sheegay raashinkii biyo caani waan cabiyaa bris maanta waan cunay muquumadii waa taasoo waan cunayaa waa muquud qaqalana tageela laga sheego alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waan idiin sheegayaa in aan anigu raadkii caafimaadka ilaahay saba uga soo dhigay Farxaan oo aan raadkaa hayo dawooyinkii ii qorayna 3 bilood baa hadhay iyo koogo 4 bilood ii qoray waxaan ummadda islaamka ogeysiinayaa inay isku daweeyaan xanuunka waxaan xanuunaysay xididka mursayska la yiraahdo xanuunayay muddo 10 sano meelaha ku dhow bay xanuunayay dhakhaatiir hore waa la soo xiriiray dhakhaatiirta hore muddo badan ma la soo xiriiray wax badan kama kulli oo caafimaad badan kama helin doctorka waxaan la soo xiriiray muddo 3 bilood meelahaas la soo xiriiray dawooyin siiyay alxamdulillah aad baan xanuunka uga ladnaaday aad baan wanaagsanahay de doctorka ila khayr siiyo waxa uu ku daweynay qayb kan maxaa raahday maxaa raahday ashcaabta maxaa dhirta ah heerbalku ku daweynaya alxamdulillah ila khayr siiyo aad baan ugu caafimaday uguna ladanahay bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin aniga oo ka wakiila Aamina Cali Diiriye oo muddo dheer oo 20 ku dhow xanuun ka cabanaysay jirka caloosha gudaha ayaan oo wax alla wixii ay dhadhamisay inta caloosha kaga dhacaan dabadeedna ay shubmayso dhaqaatiir fara badan waa la maray waa in badan baan la soconay shiiqa bishii 8aad dhowr iyo 10keedii ayaan la kulanay Ilaahayna siiyay marka dawadii uu siiyay aad iyo aad bay ugu wanaagsanaatay calooshii ordayadu way isu taagtay jirkii kiniinkii uu siiyay jirkeedii oo siday u shumaysay yaraaday dabac buu sameeyay in jirkii markay markii dambe cuntadii u joogsatay in jirkii yar falxo oo dabco marka alxamdulillah rabbil caalamiin marka waxay tiri shiiqa inta way ilaashanaysay duca aad iyo aad u culus oo u fara badan ayay u soo gudbisay waxay tiri meel yar durugsan baan joogaa hal la iiga gudbiyo shiiqa wixii uu igu soo kaalmaynayo kolbana hal la iigu tago mar haday meeshii gobolkii tahay anigu waxaan ahay qof weyn baan ahay aan ahaadee in badan baan xanuunsanayay haddaan xanuunsanayna intaa dawaan qaadanayay dawooyinkan intaa qaadanayay waxa la waxa oo istafiido oo aan sidii wad kugu kordhay ma jiro dabadeedna wadaadkaas yimi shiiqaas yimi والله tilmaamay waxa la halkan sheekh baa joogo waa ilaahay bay soo dhaqaajiyay talaabada ilaahay baa iska wata waanu imi hadda waxa igu gaadhay inaan 2 sanadood aan ka qaato dawo dhiikar baan lahaa macaan baan lahaa fiix baan lahaa alxamdulillah maxay kale waxaan lahaa gaasran lahaa alxamdulillah rabbil caalamiin imika aad iyo aad baan uga fiicnahay xanuunadii oo dhan 8 sanadoodna aan xanuunsanayay dhakhaatiir badan oo aan dibadda ahayn oo dalka ahayn ayaan tagay dawooyin badanna waa la soo siiyay dhakhaatiir badanna waan la kulmay kulankii aan la kulmay dawo walba intaan qaadanayay bisha ay jirkeyga ku jirto waan ku ladnaaday laakiin wixii kale xanuunkii halkiisii buu ka bilaabayay dhakhtarkan Alhuda waxaan la kulmay waqti ayaan la xiriirayay imika 4 bilood 4 bilood aan la xiriirayay dawooyinkii uu isiyay aad iyo aad ayaan ugu ladnaa markaan oo imid muddo 2 sanadood ka hor meelahaas anigu markaa xanuunsanaya xanuun fara badan dareemay qaar ka dhammo badan macdanta intaas marka sheekh markaan wuxuu ku sheegay xanuunka la yiraahdo guri waxa la yiraahdo musmiyaan marka dawooyin buu siiyay waan qaatay waan ku soo noqday in macaan xaydkuna qalbiga gali jiray
markaa igu khalkhalana xanuun fara badan ma dareemi jiray markaa waan u imid dawooyinka buu ii qoray muddo markaan xoogaa qaatay waan kusoo noqday dawooyin kale ayaan qaatay marka waxaan dareemay isbedel fara badan oo wanaagsan marka maasha allah horta aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa xarunta alhuda xanuunin badan hayay ayaan daawo ka qaatay waan ku ladnaaday alxamdulilaahi rabbilcaalamiin muddo badan ayuu yahayay maasha allah dawadii siiyey wadaadku aad iyo aad baan ugu caafimaaday anuu dawadii qaadanayana waan caloosheeda ilaahay wuu siiyey alxamdulilah horta ilaahay baa ubadka haya haddana alxamdulilah kulley dawada inba ilaahay ugu caafimaayay magacay waxa weeyaan ismaaciil salaabaan faahiye waxaan ka hadlayaa maanta ilaahayna haddii doctorka heerbalka ku takhasusay doctor farxaan oo aanu imid anigoo gaas jari ka cabanaya in badanna uu yahayey dhowr sano dhakhtarkana la ii dhigay ayaanu imid farxaan doctorka wixii siiyey dawada gaas jariga ah oo qiimaheegu ilaa $30 u yahay oo sidii malabkoo kale ah macaan iyo kaah yar bay leedahay ku dhacaya halkan dadka wax kaga soo kacayaan waa labxada maanta ilaahayna haddii baan taaganahay waan ku caafimaaday maantana waan ka wanaagsanahay kulaylkii waan cunaa waxba uma joojiyo sideedii hore aan caadiga ahaa baan kusoo noqday aragteen oo daawateen xaqiiqatan dadkii hadlayay waa ilaahay mahadi ilaahay baana mahadda iskale ilaahay subxaana wa tacaala na abuurtay isagu khaaliqa koonka ayaa mahadda iskale ilaahay baa subxaana wa tacaala ku mahadsan bandhigiddii aan soo bandhignay iyo maaragtay ilaahay siduu addoommadiisa u caafiyey intaba ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan dadaalka un alhuda ay wado waxay dabiiciga dawooyinka dabiiciga ee dadka la doonaya insha allahu tacaala in jirkoodana wax loogu dhimin qofkiina xanuunkii la doonaya ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay baa wax caafiye ilaahay inuu kaga caafiyo dadaalka un bay wadaan wixii mahadana ilaahay baa iska leh hagaag daawadayaal waxaan filayaa inaad ka wada bogateen muuqaalada kala gedisanaa ee laga soo duubay dadka waayada dambe sida aadka u isticmaala dawooyinka dabiiciga ee laga sameeya dhirta ee aanan kiimikada ahayn waxaana caawa barnaamijka iyo qeybihiisa kala gedisana si aada ugu faaqidi doonaa xarunta alhuda herbal medicine oo kamid ah xarumaha waayada dambe sida aadka uga shaqeeya arrimaha bulshada iyo weliba qeybaha kala gedisan ee xaafadda Isli iyo guud ahaan deegaanada ay Soomaalidu waxaana caawa barnaamijka marti igu ah sheekh farxaan cali dhimbil oo isagu ah milkiilaha xaruntaasi iyo weliba kamid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed iyo weliba culimada isla markaana sida aadka waayada dambe ugu tafaxayta sidii uu bulshadiisa wax badan ugu qaban lahaa daawadayaal waad ka qayb qaadan kartaan qeybaha kala gedisan idinkoo isticmaalaya Facebook iyo Twitter-ka sidoo kalena waxaa si toos ah u soo wici kartaan taleefanka haatan shaashada idinkaga muuqda idinkoo weliba su'aalo ka weydiin kara xanuunka aad la nooshahay ee aad doonayso in laga dabiibo sheekh soo dhawow marka magacaygu Axmed Laqay ku soo dhawow barnaamijka bandhiga bal marka hore waxa tafaasiil guud inaga siisaa xaruntan iyo hanaanka ay u shaqeyso bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin xaruntan waxa u shaqeysaa sida xarumaha kale caafimaadka u shaqeeyaan cudurrada ay daweeyaan way daweysaa kaliya waxay kaga duwan tahay iyadu kiimika wax kuma daweyso waxay wax ku daweysaa yani dhirta dabiiciga ee aan dhibka qofka bini'aadanka naftiisa aan u geysanayn marka xaruntu wax walbay daweysaa oo xarumaha kale lagu daweeyo ee caafimaadka laakiin kaliya waxay kaga duwan tahay dawada ay bixinaysaa waxay tahay dawo dhaqameed ama dhir ka kooban oo aan qofka bini'aadanka waxba u geysanayn waa tahay xilliga aad aseesteen iyo waxyaabaha idinku kalifay xaruntan inaad hirgelisaan runtii waxaan ugu kalifay markaan aragnay kiimikadu dhibka ay leedahay qofka bini'aadanka siday jirkiisa dhib ugu geysanayso tusaalehaan haddaan usoo qaato qof baa waxaa ku dhacaya kansar wuxuu u baahan yahay qofkaasi in la badbaadiyo seliskiisiina dib loo soo dhiso fayraska gudihiisa ku fidayana la joojiyo marka qoladan kiimikadu waxay u sameeyeen dawo lagu shubayo oo timihii ka buubinaysa dhib badan u geysanaysa
skin disease ku abuureysa qofkii cuncun iyo rafaad iyo hurdo la-aan ku dhacayso cuntadii uuna cunto badan qaadan karin taasaa marka waxay kaliftay inaan dib ugu laabano oo aan daraasayno maxaa qofka bini-aadanka lagu badbaadin karaa ma qofkii wax in loo dhimaa mise waa in la badbaadiyaa ilaa qofkan dawadan waxaa loo siiyey kansarka loogu sheegay waxay ahayd in isagii uu ku badbaado laakiin wuxuu xambaaray xanuuno kale waxaa laga yaabaa xanuunkii inuu ka yara dego laakiin skin baa ku dhacay timihii baa ka bibay wax fara badan qaar baa indhala-aan ku dhacdaa taasaa waxay keentay inaan daraasayno bal wax tabdiila oo dhaqankii horea ama dawooyinka horea inaan la nimaadno si addoonka loo badbaadiyo waa tahay inta badan dadku waxay aaminsan yihiin xarumaha caafimaadka ee aan harbalka iyo waxyaabaha lagu sameynin waxaa jira dad badan oo idinku aad idin yimaado oo xaruntiina yimaadsa markaana aad daweysaan maxay ku kala duwanaan karaa marka xarumaha aan harbalka lagu sameyn iyo xarumaha harbalka dadka lagu daweeyahay kaliya waxay ku kala duwan yihiin midna waxaa lagu kaydiyaa chemico xarumaha kale sida dhakhaatiirta ay fadhiistaan chemicada lagu bixiyo dawada waxaa lagu kaydiyaa chemico dhibka markaa meesha yaallaa wuxuu yahay chemicada dawada lagu kaydiyo ayaa waxay keenaysaa side effect inay qofka bini-aadanka ku abuurto taasaa marka aan ku kala duwannahay annaga shayga iyagu side effect ma laha chemicana laguma kaydin waana shay dabiiciya oo runtii la dhowray la ilaaliyey fresh ah aan chemical lagu kaydin aan cid suuqa ku caydhsanaysa aan lahayn qofkii bini-aadankii tayo fiican u leh saliskiisii dhisaya taan baan ku kala duwannahay waa tahay alhuda ma Nairobi kaliya ku kooban tahay mase deegaano kale oo ay ka howlgashaan ayaa jirto oo ay dadka kaga faa'iidaystaan bismillah runtii caalamka waan kusii fidaynaa Nairobi kaliya kuma koobna South Africa way ku taallaa Sacuudiga branch baan ku leenahay inkastoo aanan xarun weyn ku lahayn Australia branch baan ku leenahay Allahumma musta'aan dad waxa noo gado oo wixii qabta baan ku leenahay laakiin xarumaha ugu waaweyn waxay ku yaalaan Hargeysa Nairobi muqdisho burco boorama wajaale ceerigaabo iyo garoowe haddana waxaan furaynaa jabuuti xuduudeeda xarun ku taalo oo dadkii jabuuti ba waxaan aragnay inay hargeysa imaanayaan oo diyaarad usoo raacayaan marka meeshii baahi ka jirta waxaan isku daynaa inaan tagno dadka aadaan ugu adeegnana runtii waa dadka soomaalida ee afkayga ku hadla iyaga markaan ha qabtirnaan waxaan rajaynaynaa inaan caalamka kale u gudubno waa tahay markay idin yimaadaan bukaanadu qaabceenkii aad u qaabishaan ama ula macaamishaan bukaanku markuu noo yimaado laba qayboodba waa u qaabilnaa waan wareysanaa haddii wareysiga aan ku fahmi weyno waxa haya waxaan isku daynaa inaan computer saarno oo jirkiisa ogaano waxa ku jira xanuunada ku jira taa waa u baadhnaa wareysigana waan siinaa qofka bini-aadankana waxaan ogaanay laba nooc inuu u jirado sidiisaba qayb waxaa lagu fahmaa kombiyuutaradan caalamka jismigu ku dhaca nabiyullaahi aadam calayhi salaam markii ilaahay abuuray dhoobaa laga abuuray dhoobadii laga abuuray xanuunka ku dhacoo dhan waa xanuunadan kombiyuutarada loo sameeyey marka malaria hadday noqoto dhiigkar hadduu noqdo sonkor hadduu noqdo waxaasoo dhan kombiyuutarkaa soo saaray laakiin waxaa jira xanuun ruuxda ku dhaca sida jinka isha iyo sixirka kaasi wuxuu u baahan yahay kombiyuutar ma soo saari karo wuxuu u baahan yahay in wareysi lala yeesho in la yiraahdo ma naxda dhafooradu ma ku xanuunaan habeenkii ma soo selashaa wadna garaac iyo daal ma leedahay dhabarku ma ku xanuunaa yacni calaamaad fara badan oo lagu yaqaano dadka ruuxda ka jiran oo jin hayo ama sixir hayo ama il hayso xanuunadaasaan weydiinaa marka alhuda waxay ka kooban tahay labadii shayba inayna qarsoomin ee bannaanka usoo baxaan sidaa liajligeed baa laga yaabaa qofkii markuu dawadii qaato in ilaahay subxaana wa tacaala uu ku siiyo maxaa yeelay qof jiran baa imaanaya il baa haysa tusaale ahaan ma siin kartid dawadii malaariyada ma odhan kartid malaria haysa waa inaad daraasaysaa qofkan exactly markaad malaariyada ka weysay ama dhiigkarkii ka weysay ama jirkiisii intaad baadhay aad wax ka weysay bal xanuunka kale muxuu noqon karaa hadduu il noqdo waad inaad dawadii isha siisaa marka labada noocba baaritaan baan u sameynaa waa tahay xanuunada kala gedisan ee aadanahu ku dhaco inta badan aan iraahday inta badan marka laga hadlayo xanuunka joogtada ay dadka ku soo dhacaan waxa u badan qaybta dumarka waxaa jira xanuuno badan oo loo yaqaano umlisibyaanka caado wareerka iyo waxyaabaha la midka ah qaabcankee ayaad ula tacaashaan amaba aada u daweysaan idinku bismillah horta umlisibyaanku runtii waxaan aragnay in gabdho badan ay dhib ku hayso waxaad arkaysaa gabadh muslimad ah ilmo soo dhashay ninkeedii weli la nool yahay
markay ilmihii dhashay dhalmadii ay ka istaagtay. marka su-aal baa meeshan taalla. ilaahay wuxuu tusay gabadhan inay beer tahay oo wax soo saari karto, caqiim maaha. waa in la raadiyaa ciladanu maxay tahay. ila qofkanu beer buu ahaa, ilaahay baa subxaana wa tacaala ilma siiyey. ilaahay wuxuu tusay beertan haddii wax lagu rido in wax ka soo bixi karaan. markaa ay ilmihii ka istaagaan, waa in su-aal la isweydiiyaa maxaa keenay. ma tuubooyinkaa xidhan, waa in baaritaan lagu sameeyaa. ma umusibiyaan baa jirta oo shaydaan ah oo lagu salido gabdhaha. yacni tusaale ahaan nin baaba gabadhii ka helaya, wuxuu rabaa inayna ninkaa waxba u dhalin, shaydaan buu ku salidaya. markaasay ilmihii kasoo tuuraysaa. calaamad marka waxay leedahay lagu garto oo xaqiiqa. waxaan aragnay kuwo dhakhaatiirtu intay waraaqo iyo wata noola yimi yiri tuubooyin baana xidhan. markii dawadii umusibyaanka calaamaadkii umusibyaankana lahaa markaan wax weydiinay, umusibyaanka dawadeedii markay qaateen in ilaahay subxaanahu wa tacaala ilmo uu siiyey. waxaan xasuustaa caawa aan kula hadlay intaanan stuudiyaha soo gelin, sweden gabadh baa iga soo wacday 10 years ma dhalin, wiil baan haystaa bay tihi, maxamed baan u bixiyey. waa wax ilaahay lagu mahadiyo subxaana wa tacaala. sababtoo qofku markuu fahmo qofkan jiradiisa waxa haya, wuxuu markiiba ku degdegayaa in uu qofkii caawiyo. ilaahay bay caafimaad ku taalla inuu ilaahay wax siinayo inuuna siinayn. laakiin isku day markaad fahanto shaygan in aad qofkii saad ku caawin lahayd falkeeda gasho si ay u hesho wixii ay raadinaysay. waa tahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay sheekh farxaan cali dhimbil oo ah milkiilaha xarunta alhuda herbal medicine oo ka howlgasho deegaano badan ay soomaalidu degto. daawadayaasha ayaan fursad u siinaynaa inay qadadka taleefanada soo beegsadaan, islamarkaana ay sheeqa su-aalo soo weydiiyaan. haddii aad tahay bukaan la nool xanuunada kala duwan, islamarkaana intii hadda waxa uu sharaxayay adigoo ay ku heystaan, waad soo weydiin kartaa doctoorka adigoo kaga qayb qaadanaya dhanka baraha bulshada sida facebook iyo twitterka. sidoo kalena si toosa usoo wici kara taleefanka shaashada haatan kaaga muuqda. daawadayaasha ayaan fursad u siinayn inay sheeqa su-aal soo weydiiyaan, islamarkaana si looga jaahil saaro amaba daba loogu tilmaamo xanuunada ay la nool yihiin. daawadaha ugu horeeya ayaan fursad siinaya. halo westn. halo westn. halo westn. aad iyo aad baan uga xunnahay, daawadahaasi umay suuroobin inuu barnaamijka ka qayb qaato, balse waxaan filaynaa inuu dib ugu soo noqon doono, islamarkaana uu ka qayb qaadan doono barnaamijka. daawadayaasha kale ayaa waxaan iyaguna fursad u siinaynaa in ay barnaamijka inagala qayb qaataan, islamarkaana ay su-aalo si toos ah usoo weydiiyaan sheeqa caawa barnaamijka martidii inoogu ah. islamarkaana haddii aad xanuun la nooshahay aada soo weydiin karto wix allaale wixii su-aalo ee maankaaga ka guuxaya. fursad ayaan u siinaynaa dhammaan daawadayaasha. waxaad inagala soo xiriiri kartaan taleefanka haatan shaashada idinkaga muuqda idinkoo su-aalo soo weydiin kara sheekh farxaan cali dhimbil oo ah milkiilaha amaba ninka iska leh alhuda herbal medicine oo kamid ah xarumaha lagu daweeyo dadka, islamarkaana ay loo isticmaalo dawooyinka dabiiciga ee loo yaqaano harbalka qeybaheeda kala gedisan, taasoo inta badan bulshada waayida dambe ay dib ugu laabteen oo laga sanaasulay dawooyinkii kiimikada ahaa, islamarkaana dadka saameynta badan ku yeelan jiray. daawadayaal waad soo beegsan kartaan qadadka taleefanada. daawadaha ku jira ayaan fursad siinayaa. halo westn. halo westn. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. walaal magacaaga halkaad nagala soo xiriirta. magacayga cali axmed baa la yidhahdaa, farxaan kala soo hadlaya. cali soo dhawow. sheekh waxaan weydiinayaa daldawadu gacan lagu yimi hooyadii xanuunsanaysa u geynay. haya. marka xanuun waxa ayaba ma xanuun iyo diifada wadada xanuunka haya, laakiin su-aalku la weydiiyey ahayd iyo bawaasiir leedahay. marka waxaa dadkayna bawaasiir leedahay dawi noo qoray, dawadii markaa bawaasiirta adigu wax kamida wada isticmaashay, laakiin xanuunkii kale dawo looma qorin. marka maxaa xal hadda maxaan sameynaa? su-aasha ka weydiinayaa. talabaad aniga lafteeda waxay hay kaliya xanuun kaliya xanuunaya, wax dawada oo kaliya xanuuna ma samayn karaan, ma heli karaa? waad fahantaan umaleynaya. waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay. ha ka dheeraanin tv-ga, islamarkaana si fiican u dhoga jawaabta uu sheeqa bixin doono. hay sheekh. bismillah. insha allah hooyo way sii wadaysaa dawada. waxaan rajaynayaa haddii ilaah yihahdo sabtida inaan ka shaqeeyo burco, oo aan yowmu sabti insha allah shaqan kale ee burco haddii ilaah yihahdo. xafiiskaygana waan tegayaa. marka hooyana sabtida keen, dawana waa loo sii wadayaa. sababta qofka baabasiirka qofka jirkiisa ay ku jirto waxaa adag in dawo kale la siiyo ilaa iyada laga safeeyo mooye.
taasaan waxaan uga hormarinay in dhiigkar ay qaadato ama wadna xanuun hadday qabto u qaadato marka dawooyin kale loo bilaabaya markay dawadaa dhammaysato insha allahu tacaala isna wuu helayaa kaliya xanuunka insha allah waa tahay aad iyo aad baan u filayaa cali axmed oo inaga soo wacay burco in su-aashiisa uu ku qancay daawadaha xiga hala weystiyen ها ولا لسه قابل تي في قاعد نقدر داون أساسي عن سوق مقلنا ما قاعد هلك نقدر نسوي حريرتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وحن عايزة الصوماليات. أيه سودو هو الصوماليات. وحن جوا حرارة قصيرة كاكوما. أيه. الشيخ قال الله سي وحن وأنا يقول أيه. marka in muddo ayaan waxaan ka xanuunsanayay dhinaca midigta garabka bilaaw ilaa iyo sintaan ka xanuunsanayay marka xanuunkii hadda uu soo gudbay ilaa iyo gudaha beerka usoo gudbay teeda kale hadda waxaan dareemayaa mar inay dhinaca wax igaga jiraan oo ilaa iyo beerka ay soo gaarayaan marka wax inay wax igaga jiraan aan umaleynaya marna inay caadi tahaan umaleynaya marka xanuunkii muddo 2 sano uu ihayaa marka sheekh qeyr allah si allah barakeeyo waxaan rabaa in aan ii weydiiso waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay tv-ga ha ka fogaan jawaabtana si fiican u dhageyso haya sheekh bismillah runtii waxaa jira qofka bini'aadanka sidaan tilmaanay 2 nooc baan u baadhnaa qofkuna hadduu yiraahdo dhinac baa xanuunaya dhinaca xanuuno badan baa ku dhaca faalig buu noqon karaa ma umisbiyaanti aan tilmaamayno noqon karaa waa inaan u helaa wax cad tusaale ahaan ama waa inaan baaritaan ku sameynaa ama waa inuu xarumaha iyaga la soo xidhiidhaa si su-aalo fara badan aan u weydiino oo aan u xaqiijino exactly waxa meesha ka jira marka gabadha waxaan leeyahay insha allahu tacaala isku day xarumaha inaad la soo xidhiidho si su-aalo fara badan lagu weydiiyo si loo ogaado xanuunka ku haya waxa uu yahay waa tahay aad iyo aad buu u mahadsan yahay waxaan filayaa hooyo soomaaliyeed oo inagala soo xiriirtay xirada kaakuma ee dalkani Kenya jawaabtii la siiyay isla markaana ay la soo xiriiri doonto xarumaha caafimaadka ee uu ka howlgala sheekha daawada xiga ayaan fursad siinayna halo westian halo alaykum salaam tv-ga iska gaabay si aan soo maqalna adoo raali ah magacaaga halkaad nagala soo xiriirtay haya maxaad weydiin lahayd sheekha aniga mar hore waa salaamay sidoo kale wanaa leeyahay marka aad saacdo oo salaadaha ku dabada isha wax naxdin oo kala la kaca haya hurdada weeye toobadi jeer waa ka duwan waa naxay haya deenta ay weydiinaya sheekha farxaan cali cabdi dibrinta soo weydiin waa tahay hurdada kugu yar ayaad weydiinaysaan u gartay oo bismillah marka saacdo aan wadada ka boodiyo haddana saacada ka boodiyo waa tahay wax adkaaraad akhrisata miyaa jirta markaad seexanayso adkaara waan iska akhristaa waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeyso jawaabta uu bixin doona hadduu ilaahay xaqiiqatan waxaan tilmaamaynaa qofku hadduu naxo ama uu soo naxo jirkiisa waxbaa weheliya ama il bila aadan buu qabaa ama jin baa ku jira ama uu sixran yahay sababtoo qofku markuu seexdo hadduu soo boodo waxbaa jira kasoo boodinaya hurdada aan u ogolayn marka qofkaas ha isku dayo inuu la xiriiro meelaha cilaajka oo kale inuu isku dayo adkaarta inuu badsado salaadaha masaajid ku tukado si shaydaanka kaydkiisu uu yaryahay oo ilaahay baa yariyay subxaana wa tacaala oo daciif ka dhigay si shaydaanka jirkiisa ku jira ama dhibka haystee jirkiisa ay ku sameynayaan uga baabo laakiin waxaan caddaynaynaa qofku hadduu naxo oo uu soo naxo waxbaa weheliya ama il ha noqoto ama sixir ha noqoto ama jin ha noqdo marka isku day inuu la xiriiro cilaajka insha Allah taala waa tahay daawadihii ugu dambeeyay nagala soo xiriiray xagar dheer ee deegaanka Dhadhaab waqooyi bari waxaan filayaa in jawaabtiisii uu helay daawadaha xiga ayaan fursad siinaynaa halo westian عليكم السلام تي في اسكا غابي ادور حاليا ku celi adiga raaliya su'aashaada si aan u fahanno
waa laba sano muddo laba sano ayaa dhiigga u dhicin marka horena dhigan baan qabay dhinac xoogo waa lasiiyey dhibkii ka bacdi baa dhiigga isbedelay haya marka waa la ahay dhiiggii intii laba sano waa la ahay waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan u fahanay muddo 2 sano inaysan wax dhiiga oo kugu dhicin bal aad weydiinayso sheekha jawaabtaadana waad helaysaa ha ka dheeraan tv-ga isla markaana si fiican u dhugo sheekhaya bismillah gabadha waxaan kula talinayaa insha allahu tacaala inay xarumada la soo xidhiidho sababtoo ah dhiigga wax badan baa baabi'iya infectionku hadduu bato dhiigga wuu baabi'iya umusibiyaantii aan tilmaamaynay sababtoo hadda waxay tilmaantay dilan inay ka qaaday dhiiggan istaagay dilanka way samaytaa umusibiyaanta waxa la yidhaahdo oo dumarka 3 bilood markuu ilmuhu gaaro way soo dishaa markuu 5 gaaro way soo dishaa ilaa 7 way gaarsiisaa inay soo disho marka haddii dhalmada ay kala dagaalamayso kale tusaale ahaan waxay isku daydaa darajada ugu dambeysay istaajiso waa dhiig sababtoo ah waxaan waxay la dagaalamayeen dhalmo maadaama dhalmadii ay la dagaalamayeen dhiiggu markuu istaago waxaa adkaanaysa gabadhii inay uur qaado te gabadhaan dhiigba ka qobaysan oo makaankeedii isfurin waxaa adkaanaysa inay uur qaado marka ma oranayo umusibyaan bay qabtaa laakiin xarumaha la soo xidhiidho si aan u helo yacni inaan ka helo information dheeraada si aan u tilmaano wax exactly jirkeeda ku jira insha allah waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida wanaagsan eed uga jawaabaysa su-aalaha daawadayaasheena soo weydiinayaan daawadaha xiga hala westn hala westn السلام عليكم. calaykum asalaam waraxmatullah magacaaga halkaad nagala soo xiriirtay ومحمد كيلان جوجو ماليرا. maxamed soo dhawow وعلو الشيخ يا ذي السلام عليكم. calaykum asalaam waraxmatullah يوم الشيخ أنا معدي ويدي ساعة حنون ليران قرب أي حاجة. ku celi adoo raali ah حنون سفر. haya مركب إن شاء الله داودي تبغى ويدي. waa tahay ha ka fogaan tv-ga jawaabtaadana dhegeyso haya sheekh bismillah runtii waxaan soo bandhignay waxay ahayd dadkii sonkorta qabay ilaahay subxaana wa tacaalana daw usoo dejiyey sonkorta tusaale ahaan dadka muslimiinta runtii waxaan kula dardaarmayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay xabatu sawda inay dawo u tahay cuduradoo dhan ilaa geerida iyo da-da mooye gabowga laakiin waxaa la yaab leh waxaad arkaysaa qof muslina markuu noo yimaado inaan ka dhaadhicin weyno bahashan way dhammaataa sababtoo maskaxdiisa waxaa lagu soo shubay in cudurkan una dhammaan oo weligii ula noolaanayo say ku dhacday marka iyadoo waxyi ilaahay subxaana wa tacaala nebiguna noo tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam in ilaahay cudur walba dawo usoo dejiyey in qofkan uu horta u biliif gareeyo cudurkan inuu la noolaado marka kow horta waxaa cudur aba in qofku niyadiisa uu geliyo cudurkan inuu weligii la noolaanayo marka daway leedahay sida ilaahay subxaana wa tacaala dadka addoommadii adiga kula mid ahaa ee sonkorta qabay ay u dawoobeen baa adna dawo u helaysa insha allahu tacaala laakiin waxaa kuula dardaarmayaa keliya qof muslina haddaa tahay isku day inaad niyadda geliso in wax walba ay dawo leeyihiin oo waxaan maanta usoo bandhigaynaa sonkortii inay dawo leedahay oo dhiigkartii inay dawo leeyahay waa inaan beeninaa khuraafaadka caalamka lagu fidinayo oo ah inaan wax walba dawo lahayn sababtoo kansarkii waa dawoobaya waxaa la yidhaha dawo ma laha h i v gii waa haynaa dawuu leeyahy oo intaasoo qof baa ilaahay subxana wa tacaala ka kaxeey sonkortii iyaga ma soo bandhigno sababtoo cirdiga qofka muslimka waa la ilaaliya sonkorta waa soo bandhigi karnaa kansarkii waa soo bandhignay dhiigkarkii waan soo bandhignay marka dadka muslimiinta ha ogaadeen waxaan hayaa inay dawo leeyihin tusaalaan soo qaadanaya dhiigkarkoo kale haddii qofku salaatuleyl kaliya uu laasimo oo habeenkii ilaahay u kaco subxaanahu wa tacaala isagoon alhudaa aadin oo dawo kala doonan oo kiniin aanan siinin baa laga yaabaa alle subxaana wa tacala inuu kaga kaxeeyo waxaa dhacday nin mandheera dhakhtar mandheera dawooyin ku gadaa maalin ii yimi qisuu iiga sheekeeyey qisaduu iiga sheekeeyey maalin maalmaha ka mid a anoo t v fadhiya ayaan dadka waxaan u tilmaamay salaatuleylka inuu dhiigkar ku daweeyo oday wuxuu yidhi aan dawo siin jiray oo dhiigkar anigu aan gacanteeda ku siin jiray isbuuc walba baan isbuucyo waayey waxaan yidhi tol odaygii ma dhintay buu yidhi dhakhtarkii baa ii sheekeynaya maalintii dambaan magaalada ku arkay buu yidhi 3 toddobaad ka bacdi markaan arkay baan waxaan weydiiyey yidhi war dawadii ma meel kale aaday oo dawadii dhiigkarka ka qaadataa ilaa dhiigkar baa ku hayn jiray maxaad iigu imaan weysay dawadii mayna kaa dhammaan markaasuu wuxuu yidhi nin t v fadhiyo oo salaatuleylkaa dawo oo baan maqlay salaatuleylkii baan tukaday ilaahayna uga kaxeeyey iyadoo salaatuleyl kaliya ilaahay kaga kaxaynaya dad baa maraykanka kaa soo wacaya dhiigkar qaba
markaasaad waxaad u tilmaamaysaa war dhiikar keliya hadday tahay salaatuleylkaa ku filane ilaahay isu dhiiba habeenkii ilaahay subxaana watacaala u istaag markaasu wuxuu leeyay maya aniga $1,500 baan soo dirsanayaa dawo iisoo dhiib yani waxaad dareemaysaa inayba salaatuleylkii kala weyn tahay iyo ilaahay inuu isku xidho subxaana watacaala war $1,500 intay kaa bixi lahayd oo kiniin aan ku siin lahaa isku day salaatuleylka keliya inaad tukato si ilaahay kuu caafiyo intaasaad waxaad qofka dood kala maraysaa isagiina wuxuu ku kalsoon yahay kiniinka uu liqayo ee la yidhi dhiikarku daweeya markaa sonkortu daway leedahay dhiikarkuna dawu leeyahay ilaahay baana daweeyey subxaana watacaala waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan filayaa maxamed oo inaga soo wacay ismaamulka Mandera waqooyi bari Kenya in jawaabtii la siiyay dhanka sokorta ahayd uu ku qancay isla markaana uu ka faa'iideysan doono haddii Ilaahay idmo daawadayaasha kale ayaan fursad u siineynaa inay barnaamijka nagala qayb qaataan isla markaana ay qadadka taleefanada soo beegsadaan si ay su'aalaha maankooda ku jira u weydiiyaan Dr. Farxaan oo caawa inala fadhiya isla markaana kamid ah culimada Soomaaliyeed daawadaha haatan qadka ku jira ayaan fursad siinaya Hello STN Hello waxaad moodaa daawadahaasi inuu isagoo mashquul ah taleefanka soo wacay daawadayaasha waxaan si naxariis leh uga codsanaynaa inaad ka fogaataan aaladda aad naga daawanaysaan si aan soo maqalno isla markaana aad u diyaar garowdo markaad taleefanka soo wacayso si aad uga faa'iideysato waxa aan caawa ka hadlayna iyo martida nala joogta iyo weliba dhanka caafimaadka la xiriirta daawadayaasha kale ayaan fursad siinaynaa ee qadadka soo beegsanaya Hello STN Hello STN ka xumahay daawadahaas uma suuroobin kan xiga Hello STN waan ka xumahay daawadahaasi waxaad moodaa in hawada ay ka hiilisay balse uu soo noqon doono hadduu Ilaahay ma daawadaha xiga Hello STN Hello STN aad iyo aad baan uga xunnahay daawadahaasi kalena waxaad moodaa inuu qadka u saamixi waaye balse dib وعليكم السلام walaal magacaaga halkaad nagala soo xiriirtay hooyo Soomaaliyeed baan ahay soo dhawow hooyo Soomaaliyeed ana waxaan haysaa wiil oo HIV haysta ku celi adoo raali ah ya waxaan haba wiil baan qabaa haya oo cudurkan HIV qaba haya marka yartii dawooyinkii baa lagu dilay imika beryahan anta uu sii liita markaasuu jooy sheekh muxuu igu talin karaa waa tahay hooyo Soomaaliyeed TV-ga ha ka dheeraan ilaahna ha caafiyo wiilkaas caafimaad degdegan ha siiyo ilaah baan u baryaynaa bal talooyinka uu sheekhu ku siin doono insha Allah waxaan rajaynayaa hooyo insha Allah taala in nala soo xiriir telefoonadayada qaado runtii xanuunka qofka qaba TV-gana waan ka sheegayaa waxba yuu soo weydiinin su'aashaas oo kale sababtoo qofkan cirdigiisa iyo sharaftiisa u baahan in la ilaaliyo xanuunku waa wax la isku imtixaano ama xumaan ha ku yimaado ama samaan ha ku yimaado si badan buu ku yimaadaa mar walba looma daniyo qofka muslimka inuu xumaan ku yimi xagga khayrka la daniya laakiin cidda xanuunkaasu hayo ha isku dayo khaasatan waliba telefoonka khaaska aan u wato xanuunka anigu baa qofka kala hadla xataa kalama hadlaan dadka kale ee alhuda ka shaqeeya marka ha isku dayo insha Allah telefoonkayga inay hesho oo nala soo xiriirto wixii aan ka caawin karo ayaan ka caawinaynaa insha Allah taala waa tahay hooyadaasi waxaan ka codsanaynaa insha Allah inay la soo xiriirto qolooyinka farsamada inoo fadhiya teleefankoodana ay ku reebto halkaas si mataqaana ay sheekha si toos ah ula soo xiriirto hadduu Ilaahay dhanka farsamada ay la soo xiriiri doontaan daawadayaasha xiga Hello STN Hello STN السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله magacaaga halkaad nagala soo xiriirtay أبو أحمد عبد الله maxamed cabdi soo dhawow waan fiicanahay sheekh waxaan weydiin lahaa ilaa nin muddadan dhoontan ka xanuunsanahay intee ka xanuunsanaysaa dhoontan ka xanuunsanahay dhuunta haa haya mar baan kinejes ku sameeyay khiraan iska sajaxay haya ilaa waqtigii waxba ay dhibaa waa igu tagmaya ma garatay si fiican marka mar baan dhacdaa baan gaaray haddana waan roonaa ilaa saabiinku way xabanaysa rayd bay la xubtaa ma garatay si fiican marka dhaqtarkaas waxaan weydiin lahaa sheekha su-aashaas iyo waxyaabaa lagu daweyn karo haa waa tahay Allah ku caafiyo sheekha oo ku weydiinayna insha Allah hay sheekh bismillah waxaan leenahay runtii waxbuu ka hadlay dhuunta wixii waxay yihiin lama garanayo
dhuunta cudurro badan baa gala, xoqada way galaan, kansarka laftigiisu wuu galaa, yani maaragtay xanuuno badan baa gala, infection baa geli kara. marka waa inaan horta helaa xaqiiqda waxaa ku jira. marka qofka aada hesho xanuunka haye xaqiiqiga, markaasaa la qoran karaa, dawadiisii la raadin karaa. marka xarumaha la soo xiriiro si ama baadhitaan aan ugu sameyno, ama su-aalo fara badan aan u weydiino, ama hadduu hayo inta dhakhtar meel fog hadduu joogo, inta dhakhtar baadhay uu cudurku sheegay, cudurkaa looga daweeyey. waa tahay aada iyo aad baad u mahadsan tahay. waxaan filayaa maxamed in uu la soo xiriiri doono xarumaha caafimaadka ee alhuda ay ku leeyihiin qeybaha kala gedisanayay soomaalidu degto, inkastoo uunasan noo sheegin meeshii uu nagala soo hadlay. daawadayaasha kale ayaan fursad siinaynaa si ayaguna ay uga qeyb qaataan. halo westian. halo westian. السلام عليكم. calaykum salaam waraxmatullah. magacaaga halkaad nagala soo xiriirtay? waa xasan mandela joogan. xasan soo dhawow. waxaan rabaa su-aal gaaban inaan weydiiyo sheekha. haya. waxaan rabi lahaa baabasiirka daawo oo aan ku toosi karo oo macluum la yaqaano aan u raadsan kara haday jirteen. waa tahay aada baad u mahadsantahay xasan. ha ka dheeraan tv-ga. bismillah. baabasiirka cudurrada ugu badan aan daweyno wey. almost waxaa laga yaabaa bishii keliya 300 oo qof in baabasiir aan ka daweyno. ilaahay baa wax daweeya, laakiin dadaalkii in dawadii la siiyo. dadkuna runtii feedback aada u fiican bay keenaan. in badanna ilaahay subxaanahu watacaala wuu ka caafiyey. waxaanan kasoo horjeednaa runtii in qalitaan lagu sameeyo baabasiirka, sababta cudurro kalaa ka dhasha marka qalitaanka la sameeyo. wixii lagu qalayay infection bay reebi karaan, meeshii baa xumaan karta, xanuuno kala ka dhalan kara. in badan oo la qaleyna waan aragnay oo runtii aan dib dawo u siinay oo ilaahay subxaanahu watacaala u caafiyey. marka baabasiirku dawo fiican buu leeyahay qofkii alle subxaanahu watacaala uu ku caafinayo. waa tahay aada iyo aad buu mahadsan yahay sheekh farxaan oo caawa barnaamijka martii inoogu islamarkaana daawadayaasha u sharaxaya daawooyinka dabiiciga ee harbalka loo yaqaano ee waayadii dambe inta badan bulshadu u tafaxeeyatay isticmaalkeeda. daawadaha xiga. halo westian. halo westian. walaal magacaaga halkaad nagala soo xiriirtay? maxamed soo dhawow. waxaa weeyaan waxaan weydiin rabaa daktarka hadii muddo 6 sano maaragtay madaxa zayd xanuunaya. sax. marka isbitaal badan aan tagay, marka waxaan tagay ma jirto. sax. marka waxba ma qabti laga, marka madax wax kasta xanuunaya habeen iyo maalinba. waa tahay. qaas ahaan waxaa weeyaan salaad markaan maaragtay masaajid aadaya, marka habeenimo maaragtay 10 saac habeenimo iyo 10 saac zayd xanuunaya. markaa salaada subax aadayso. ha. hagaag. marka waxaan weydiin rabaa marka daawada saaran weydiin rabaa insha allah. aada baad u mahadsan tahay maxamed oo inagala soo xiriiray magaalada tan Nairobi. bismillah. haddii dhakhtar uu wax kaa waayay oo intaasoo dhakhaatiir uu la xiriiray madaxiina uu xanuunayo, waxaan u tilmaami lahaa waxa xanuunka haya inay tahay waxyaalahan kale ee dadka ku dhaca sida jinka, sixirka iyo isha. midda labaad ee sii xaqiijinaysa xanuunka inuu yahay, maxaa salaad subax ku qayday markuu soo aadayo? xanuun ma jiro qaydan ilaa xanuunadaa mooye. tusaale ahaan xanuunadaasu cibaadada in badan way kasoo horjeedaan. marka haddaad aragto xanuun qaydan, waxaad arkaysaa qof baa ku imaanaya galabtii unbaa xanuuni qabtaa buu kuleeyahay, galabtii keliya. malaria galabna ma taqaano, subaxna ma taqaano, habeenna ma taqaano, haddii cuduradan jismiga caadiga uga dhaca ay tahay. laakiin xanuunada waktiga yaqaana waa sida isha bili-aadanka, sixirka iyo jinka. weliba waxaa sii cadaynaya qofkanu dhakhaatiir buu u tegay, combyuteraa la saaray, waa la baadhay, waxbaa laga waayay, xanuunna wuu hayaa. xanuunka haya markaa waa xanuunadan kale ee isku dayo dadka qur-aanka dadka saara inuu u tago, macaalijiinta inuu u tago, inuu isku dayo inuu xaggan kale uu u leexdo si ilaahay subxaana watacaala uu caafiyo. hagaag. halkaad weli nagala socotaana waa barnaamijka iyaga bandhiga xubnihiisii kala gedisanaa ee maxaa cusub iyo ra'yiga dadweynaha. daawadayaasha ayaan weli fursad u siinaynaa inay taleefanada soo beegsaan islamarkaana ay su-aal soo weydiiyaan martida caawa barnaamijkii nagala fadhido. halo stn. halo stn. walaal magacaaga halkaad nagala soo xiriirtay? cali soo dhawow. soo dhawow. waa tahay halkee ku sugan tahay?
aad iyo aad buu u mahadsan yahay dabcan waad fahantay ya cali stroke cali insha allahu tacaala stroke dawu leeyahay stroke laftigiisa labaan u kala qaadaynaa mid ruuxiya wuu jiraa sixru marad sixir la yiraahdo oo stroke dad ku dhuftaa jira iyo stroke caadiga ah ee dhiigkarku keeni jiray marka laftigiisu wuxuu u baahan yahay laftigiisa in la kala qaado oo talow stroke ma kii sixirka keeni jirayba mise waa kii dhiigkarka keenay marka laftigooda calaamaad bay kala leeyihiin kala duwan insha allahu tacaala marka waxaan rajaynaynaa inuu la soo xiriiro meelaha xarumaha aan ku leenahay si aan u ogaano stroke muxuu yahay ma kii dhiigkarku keenayba mise waa kii kale ee uu keenayay sixru marad waa tahay weli barnaamijka iyaga bandhiga xubintiisa hore maxaa cusub ayaynu ku guda jirnaaye daawadayaasha ayaan weli fursad u siinaynaa kuwa taleefanada soo beegsanaya halo westian halo westian السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. magacaaga halkaad nagala soo xiriirtay walaal wajalan soo xiran magacay waa Cabdiraxmaan Duuli. Aye. waxaan u baahanahay xamdiil adiga kali xanuun ma qabo garas. Aye. dabal baaraxi ali u sheegi jiray dayla state sanadood ka badan. Aye. dhagaxiinka waa lagu waayay ay kaliyaagi mid lama hayo. Aye. mid kaliya joogto mid lama way xanuunsan tahay oo noorey qabtaa mootay. agaag magac farada xilay hol ugu qaban karay dibada tago maxay ahayd dhiigga loo qabtaa weeyaan inuu dhiigga uu aad u kaxsan si fiican jidka duubka sarnooy goonaya gelinka qamari iyo gelinka dambe xilliyada qabowga oo dhan duubka sarnooy goonaya agaag marka intaasaan doonaya sheekha walaal iyo insha Allah aad baad u mahadsan tahay wuu ku maqlayaa dabcan jawaabtana waa lagu siin doonaa insha Allah bismillah runtii waxaan isku dayaynaa marka ugu horeysa haddii dhiigkar iyo keliya ay timaado dhiigkarku keliyaha xanuunka ee dhagaxu ku jiro uu sii koos garaynaya inay sii baaba'aan marka waxaan anigu talo ku siin lahaa marka ugu horeysa isku day dhiigkarku bil buu ku dhammaadaa waxaan hadda arkaynay nin 9 casho uu kaga dhammaaday ilaahay subxaana watacaalana kaga kaxeeyey marka ugu horeysa dhiigkarka isku day inaad baabi'iso oo bil ku dhammayso kabacdina waxaan isku dayaynaa keliyaha dawadooda in lagu bilaabo ta waxaa jirta koor tabis la yiraahdo oo runtii geed aad u cajiiba laga sameeyay oo xitaa dadka kaliyaha la dhaqo ilaahay subxaanahu wa tacaala dib ugu soo celiyo in kaliyahoodii aan dib loo dhiqin oo ay soo kacaan marka dawaa lagu siin doonaa laakiin marka ugu horeysa dhiigkarka iska gaadh wajaalana xarun baan ku leenahay sida xarunta ula xidhiidhi lahayd falkeeda qabo si dhiigkarka dawo lagaaga siiyo waa tahay daawadayaasha nuqadka taleefanada dib ayaan ugu soo noqon doonaa su-aalaha iyo kale ayaan sii gudagalaynaa dawooyinkan inta badan aa bixisaan wax saameyn ay dadku ku yeeshaan miyaa jira dawooyinka waan tilmaanay dawooyinka iyagu habal weeye tusaale haddaan usoo qaado caawa waxaan rabaa inaan dadka wax daawanayo uga faa'iideeyo dawooyinka iyagu inaynan lahayn chemical side effectina inaynan lahayn tusaale ahaan dawadan waa sharoobo qofku wuxuu qaataa subaxiina qaado habeenkiina qaado malqacad sida dadku u yaqaanaan qolana waxay isticmaashaa malqacad qolana qaada isticmaashaa anigu laakiin caawa waxaan tusayaa wixii dadku ay ka qaadanayeen malqacad subaxii iyo habeenkii inaan hal mar cabo anoo qofka tusaya in waxa aan ka sheekeynayna wax khiyaali ahayn wax khiyaaliya ma aha maxaa yeelay waa sharoobadaas mufiid badan bay leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka gaastu ay hayso gaastu dad bay qabataa saliska qofka bini aadanka dadka keliyo ay xanuunayaan kansarka dadka qaba yacni runtii waa dawo in badan qofka bini aadanka jirkiisa tayo fara badan u leh laakiin caawa waxaan tusayaa maadaama anigu aan dawada qoro qofkana aan idhaahdo qaado ka qaado subaxiina qaado bilba dawadaa wadaya maadaama dawadaa bil la wadayo caawa anigu hal mar baan wadaya taasna waxay ku tusaysaa side effect iska dhaafe yacni runtii caawa inaan nashaad badan ku noolaado oo aan firfircooni dareemo jirkaygii saliskoodii ay kor u kacaan ilaahay subxaana wa tacaala uu barakeeyo dadis aan u leeyahay side effect ma laha dawada anagoo aan bixinayn dawadii baan markaa bilaabaya insha allahu tacaala bismi illah
wataa dhaladii waa tahay qofku bil buu isticmaala anigu laakiin maalintii hal xabaan isticmaala sababta waxaan ogahay mufiidka ay leedahay dadka lacagta leh guryahay dhigan lahayn caruurtoodana way siin lahayn xataa iyagoon jiranayn sababtoo kansari ma hayo gaasi ma hayo yacni xanuunada loo cuno dhan aniga ima hayaan laakiin saliskaygii bay dhisaysaa waa wax u fuucan jirka qofka bini aadanka taasu marka waxay keenaysaa dawo bil la wadayay haddaan anigu hal habeen ku cabayo waxay ku tusaysaa inayna side effect lahayn marka dawooyinkayagu waa dawooyin aan side effect lahayn waa dawooyin qofka bini aadanka jirkiisa noolaynaya oo xanuunadan ka saaray waa tahay aad iyo aad buu umahadsan yahay sheekh farxaan oo run ahaantii caawa inoo soo bandhigay hanaanka uu dawooyinkan uu isticmaalayo dabcan waxaad wada arkayseen hal dhalo oo aan ku qiyaasi karo nus liter inuu oo bil loogu talagalay inuu haddaba si toosa uu cabay sida aad live-ka uga daawanayseen amaba tooska taasina uu ku cadaynayo in wax saameyn ah aanay ku lahayn dadku aysan ku yeelanaynin weli waxaan kusii siqaynaa gabagabada barnaamijka iyaga bandhiga xubnihiisii kala gedisanaa ee maxaa cusub iyo ra'yiga dadweynaha oo aan guud ahaan caawa uga hadlaynay dawooyinka dabiiciga ah ee loogu magacdaray harbalka in ay saameyn yahayn islamarkaana dadka ay aada ugu dawoowaan daawadayaasha ayaan dib ugu noqonaynaa teleefanada iyo weliba kuwa soo beegsanaya si ayaguna su-aalahooda ay usoo weydiiyaan sheekh farxaan oo caawa barnaamijka marti inoogu ah daawadaha ugu horeeya halo westian halo westian asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullah magacaaga halkaad nagala soo xiriirayso waa cabdiqaadir aan joogaas cabdiqaadir soo dhawow iyo waa islaan adiga sheekhow sidoo kale horta marka hore waxaan u baahannahay nambarka sheekha sifa maaragtay aan u qorano maaragtay shirka ola soo dino hagaag marka labaad ani waxaan weydiinayaa hadda su-aal basaan qaba hagaag xabeebxaan qaba dhalamada orada lahayn ku celi adoo raalli ah xabeebaan qabaa iska dhalamada si fiican marka cudurna ma aha haya so waxaan dhihi jiray dawo siin karo maaragtay xabeebtaas iyo saacidayn kara ma jirtaa ma waxaad ku dhalataa mase muddooyinka dambe aad isku aragtay maya waxaan ka qabaa oo dhan ilaa weliya qaadka waa tahay aad baad umahadsan tahay ka dheeraan tv-ga jawaab lagu siiyana insha allah ku camal falaya bismillahi xabeebtu dhowr nooc bay ku imaan kartaa xanuun way noqon kartaa waxay kaloo noqon kartaa qofku togative hadduu yahay tusaale ahaan cid buu la hadlayay ama laga yaabo bulsho inuu la hadlayay ama laga yaabo inuu dad gar u dhigayay ama laga yaabo inuu dad la garamayay haddii qofkaas qof kale uu ama ku xadgudbo il way kaga dhici kartaa codkii wuu xidhmi karaa xabeebna wuu yeelan karaa waxaa kaloo kala dhici karta haddii isagu uu codkar yahay oo qof laga yaabo codkar inuunu ahayn laftigiisa il way kaga dhici karta isagoon maasha allah o dhan way dhici kartaa inay il keento waxaan aragno indhaha iyaga aan saaray qof khudbadaynayay oo hadalkii ka istaagay haddayba hadalkii istaajinayso ishii xabeebna maxay la tahay waa wax yar marka haddii ay tahay wax xanuun uu keenayna insha allahu tacaala dawaan ka siinaynaa hadday il tahayna dawaan ka siinaynaa su-aalana waa weydiin doonaa insha allah waa tahay waxaan kusii siqaynaa gabagabada barnaamijkayaga daawadaha ugu dambeeya ayaa fursad u siinaynaa si uu barnaamijka uga qayb qaato islamarkaana su-aashiisa uu weydiiyo halow daawade halo westian halo westian halo aad iyo aad baan uga xunnahay daawadahaasi uma suuroobin inuu barnaamijka nagala qayb qaato daawadayaasha aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee barnaamijka uga qayb qaadanaya islamarkaana dhanka teleefanada ay uga soo qayb qaadanayeen waxaan soo gaarnay gabagabadii ugu dambeyntii maxaad weydiin lahayd anagoo hadda hal daqiiq haysano maxaad u sheegi lahayd dhammaan daawadayaasha ku daawanaya daawadayaasha waxaan u sheegayaa wax ka baxsan alhuda tusaale ahaan aan dawana ahayn habalna ahayn waxaa jira qalbiga qofka bini aadanka inuu jirado tusaale ahaan ilaahay subxaana watacaala qalbi buuna soo siiyey qalbiga hadduu jiradana waxa keliya uu ku caafimaadi karo waa inuu ilaahay u laabto marka waxaa laga yaabaa haddii xabeebku qabato iyo haddii dhiigkar kugu dhaciyo haddii sonkor aad qaadataba in dawadeedii la helo laakiin isku day mid aan dawadiisa lahaynin inaad ilaahay u laabato mooye inaad qalbigaaga nadiif ka dhigto xaqdiga ka bixiso xaasidnimada ka bixiso yani waa inaad ilaahay ku xidhnaataa
si qalbigaagan ila jiradu jismigana way ku dhacdaa qulubtana way ku dhacdaa ta qulubta waa mid ilaahay u taala subxaanahu wa tacaala oo qofku markuu ilaahay u laabto uu caafimaadayo marka aynu isku dayno jirooyin kale dhaqaatiir baa loo sameeyey tan aynu isku dayno ilaahay inaan ula laabano subxaanahu wa tacaala waa tahay aad iyo aad buu u mahadsan yahay sheekh farxaan cali dhimbil oo ah milkiilaha xarunta alhuda herbal medicine oo ah xarun caafimaad isla markaana dadka lagu daweeyo qaabab kala duwan oo ay ugu horeyso dhanka waxyaabaha loo yaqaano dawada dabiiciga ama loo yaqaano herbalka guud ahaan barnaamijka iyaga inta ayaan kusoo afmeeraynaa aad iyo aad baan uga mahadcelinaa waqtigiisa qaaliga iyo siduu caawa barnaamijka noogala qayb qaatay barnaamijka waxaa soo saaray maxamed cibaar diiri waxaa la socodsiina anigoo axmed laqaya dhanka farsamada been ayuu ahaa dhanka duubidana andiva governor ayuu ahaa tan intaynu barnaamijkan lamid ah ku kulmi doono nabadiino